السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد يونا أكبر دين رجينا يا ملك استو أدون كاد كجوكتان كليهنو waxay kamid yihiin xubnaha aadka u muhiimka ah shaqooyinka muhiimka ah jidhkeena waxaya hadaba waxa jirta maadada la yiraahdo calcium inay dhibaatayso ay dhaawacdo kaliyaheena isla markaana ay ku sameysay ku abuurto dhagxaanta kaliyaha ku sameysma hadaba calciumtu waa mid uu jidhkeenu u baahan yahay xilliga koritaanka iyo lafaha hadii aanu qofku helin laftaadu markasta waxay noqonaysaa mid daciifa oo liidata hadaba macdanta sida aynugu qaaliga ee qiimaha jidhkeena u leh ee qofkii loo baahan yahay inuu helo xilli kasta haddana waxa la yiri waxay dhaawacaysaa oo ay dhibaato u geysanaysaa kaliyaha waa xilliga ay dhaawacayso ama ay dhibaatada u geysanayso kaliyaha xilliga ay dhaawacayso ee ay dhibaatada u geysanayso kaliyuhu waa xilliga ay isku tuusho dhiigga oo macnaheedu yahay inaad calcium xad-dhaaf ah jidhkaaga ay ku dhacday kadib qofku marka uu kaajayo ayaa waxa ay sameynayaan calciumta faraha badan ee dhiigga isku tuushay inay kaliyaha ay ku sameysantay ku tuulanto taasina waxay si toos ah u alkumaysaa ama ay u abuuraysaa kaliyihii inay dhagxaan ku abuurmaan way kaliyaha dhagxaantu ay fadhiistaan hadaba calciumtan dhibaataynaysa jidhka waagta noocee mata caanaha laga helaa mata cuntooyinka laga helaa jawaabtu waa maya calciumta khatarta badan ee ilaa hadda kalida dhagxaanta ku abuurta waa calciumta kiniiniga loo sameeyo ama dawada ee qofku uu liqo ee dawahaan uu qaato waa taata halista badan ee dhibta badan ee waliba iyada qudheedu xilliga ay ku dhibaataynaysaa waa marka xaddiga dhakhtarku ku qoray xaddi ka badan aad qaadato dad baa jira si lafaha ay ugu xoojiyaan waxay iska qaadanayaan xaddi aad u badan oo calcium iyagoo marka ujeedkooda iyo qasdigoodu uu yahay in lafaha ay xoogaystaan waliba gaar ahaan dadka inta badan jiimka iyo waxa ciyaara ama xoog buu doonayaa laftiisu inay noqoto laf aad u shuban oo xoog badan oo qara badan kadibna khatartan baa dhalata inay kaliyaha ay ku abuurto dhagxaan kaliyihii sida ay ugu tuulmato marka hore dhiig ay ku tuulmaysaa kadibna saasay ku samaysmayaan dhagxaanta kaliyuhu intaasaynu ku soo ururinayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.